عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى بعد شرفت له ومحسنتين مرلبات ما أنت شركة وكسب سنة هاي ما أنت تاريخ وتهيكو يتبن بش لبي تبنات لبكون ستبني سديد شركة وكسب سنة هاي أرميه مالنتي سقالات بش مالنتي بش عن سقال كهي نوشينكي xilka qaadista ahaa xildhibaanada golaha shacbiga u gudbiyeen gudoomiyaha iyo maaragtay wixii ka dambeeyay inay ummadda la wadaagaan xildhibaanadooda iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ay la wadaagaan iyo ku saabsan yahay sida la wada og yahay maalintii bishii sagaal ahayd waxaa gudoomiyaha golaha shacbiga loo gudbiyay mooshin ku saabsan madaxweynaha in maaragtay markii xildhibaanada waxyaalo badan ku dulqaateen arrimihii maaragtay ay ka soo jeediyeen loo gudbiyay kadib waxaa bilaabatay waxaa la falayay in maadaama golihii shacbiga ay keeneen waajibaadkooda dastuuriga uu yahay waxaa la falayay in mooshinka loo bandhamo nidaamka dastuuriga lagu socdo saas la falayay waxaa isu bedeshay in gudoomiyihii ilbaabadiis ciidamo la dhigo xildhibaanada ay u gali waayeen raashinkiis laga xanabay ayaa ka dambeysay maanta waxaa kale ku sii darsantay in xaruntii labaad ee golaha shacbiga ay lahaayeen villa Hargeysa xildhibaanada ay si rafaad ay ku soo galeen inay baabuurtooda la soo galaan loo diiday arrintaas xildhibaanada Soomaaliyeed aad iyo aad ay u dhibsadeen waxaana loo arkayaa arrin nidaamkii sharciga ahaa dawladnimada ku socotay dhaawac ku ah ayaana loo arkayaa marka barnaamij arrintaas ku saabsan golaha shacbiga maanta xildhibaanada meesha isu yimid markay arrimahaas fiiriyeen maanta shir u fadhiisteen waxayna soo saareen war saxaafadeed ku aadan aragtidooda ayagoo la wadaagaya ummadda Soomaaliyeed ay matalayeen sidaa daraaddeed arrintan furahay aniga waxaan ku wareejinayaa war saxaafadeedka la soo saaray iyo ra'yigooda inay dhiibtaan xildhibaanada sharafta leh waxaan ku wareejinayaa si uu nooga akhriyo xildhibaan Cabdifatax waa mahadsantihiin bismillahi rahmaani rahiim halkan waxaan ka akhrin doonaa warmurtiyeedka ay xildhibaanadii mooshinka keenay ay soo saareen maalintii axad ee bishii 9 ahayd December 2018 waxa xildhibaanada golaha shacabka u soo gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka soo jeedin xilka qaadis madaxweyne jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku saxiixan yihiin xildhibaano golaha shacabka ka tirsan sida ku cad qodobka 92 farqadiisa koowaad iyo qodobka labaad ee dastuurka federaalka iyo qodobka 20aad farqadiisa koowaad ee xoroosaadka ayuu ka gudoomay xildhibaanada golaha shacabka soo jeedintii mooshinka xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in aanu aadi karin shirar uu ku matalayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed sida ku cad qodobka 57aad farqadiisa saddexaad ee xoroosaadka soo jeedin mooshin xilka qaadis ee madaxweynaha laguma faafin karo golaha iyo meel kale toona ka hor maalinta ay furmayso dooda soo jeedintaas waxaana maalintaas loo qaybinayaa golaha oo kaliya sidaas daraadeed xogayaha golaha shacabka xaq uma laha inuu sheego ama dhex galo magacyada iyo sharciyada mooshinka laga soo gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee gudoomiyaha golaha shacabku qabtay xaqiijiyayna inuu waafaqsan yahay qodobka 92aad farqadiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka federaalka Soomaaliya xogayaha goluhuna horey u cadeeyay inuu qabtay una diiwaan geliyay soo jeedinta 9 December 2018 sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed ee aan ku matalo golayaasha sharci dejinta waxa ay tahay shaqada gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ka akhriyay waraaqo aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka
sida ku cad qodobka 6 xoroosaadka golaha shacabka xilka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka marka uu joogo gudoomiyaha golaha shacabku gudoomiye ku-xigeenadu marka uu joogo gudoomiyaha golaha shacabku waxa ay qabtaan oo kaliya wixii gudoomiyuhu u diro xaqna uma laha inay ka hadlaan shaqo uusan gudoomiyuhu u igman marka hore waxaan ka raali gelinaynaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hadalladii gafka ahaa ee ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee aan sharciga iyo dastuurka waafaqsanayn waa nasiib darro aad u weyn inay sidaas u dhaqmaan gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee laga rabay inay buddigu noqdaan ilaalinta dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan sareynta sharciga kana hor yimaadaan habdhaqan kasta oo dhiiri gelinaya keligii talisnimo iyo ku tumasho sharci waxa kale oo aan rabay inaan ku daro arrinta gudoomiyaha golaha shacabka waxaanu rabnaa inaanu halkan ka cambaarayno xayiraadii lagu soo rogay oo ay ku jirto in cuntada oo uga iman jirtay bannaanka laga gooyo isaga iyo askartiisaba in laydhka laga damiyo oo si joogto ah looga damiyo mararka qaarna loo sii daayo waxaa kaloo aan cambaaraynaynaa in dhaqaaqyadii dadka u imanaya ama uu isagu dalbado ama booqasho ugu imaanayay ee uu raallida ka yahay in laga hor istaagay oo aanay u suuro gelin in ay u tagaan marka in dhaqdhaqaaqa gudoomiyaha oo ah qofka labaad ee maamus ahaan qarankan ugu sarreeya la xayiro waxay la mid tahay in uu gudoomiye ku-xigeenka la isku dayayo inkastoo aanay sharci ahaan suuro gelin in la isku dayayo in xabsi guri la geliyo taasina ma aha suuragal ma aha sharciguna ma aqbali karo annana ma aqbali karno ummadda Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay jawaabo degdeg ah ka bixiyaan arrintaas oo ay dareenkooda ku muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan in sharciga la baarmado madaxweyne ku yahay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda haddii uu isagu baal maro shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalana madaxweyne ma noqon karo waa ka anigoo ah xildhibaan xasan cabdi ismaaciil ka tirsan golaha shacabka ka mid ah guddiga mooshinka geeyey haddana aragtideeda ka dhiibanaya halkan waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka ummadda Soomaaliyeed qodobada soo socda qodobka koowaad eedeysane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laga bilaabo bishii 9keeda waa eedeysane sidoo qabo dastuurka qodobkiisa 92 waxaa laga geeyay impeachment khiyaano qaran ah wuxuu ku eedeysan yahay inuu jabiyay dastuurka dalka inuu midnimada ummadda Soomaaliyeed halis geliyay inuu anti federaal yahay dowladgoboleed burburinayo inuu muwaadin Soomaaliyeed dhiibay qodobadaas oo ah qodobo eedeyn aad u culus impeachmentigaasi loo geeyay gudoomiyaha baarlamaanka xoggiisa guud uu la fadhiyay sida sharciga waafaqsan ayaa tiradii loo baahnaa in ka badanba loo tiriyay iyadoo meesha taala kadib waa la istamgareeyay arkiifyada la geeyay waxa intaas ka dambaysa wax u yaala oo shaqo ah oo xogay guud u yaala oo ilaha wareema laha waxa u yaala kali ah processkii la marsiin lahaa iyo si loo geyn lahaa golaha guud ee baarlamaanka loo geyn lahaa loogana doodi lahaa impeachmentigaasi laga keenay madaxweynaha la eedeeyay maxamed cabdullaahi farmaajo intaas kadib saan ku naqaano qannada aadka u foosho xun aan ku barannay 2 sano ee la soo dhaafay hoggaanka dalka hadda ka jira waxay bilaabeen tallaabooyinkii ay ku soo caanamaaleen ay ku kici jireen falalkii ka baxsanaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku tumashadii sharciga waddankan u yaala iyo sareynta sharciga waxay bilaabeen siday ula dhaqmeen gudoomiyihii hore ee Jawaari inay ula dhaqmaan gudoomiyaha cusub oo ay amraan inaan loo tagi karin la soo booqan karin xildhibaanadiisana aan u tagi karin waxay bilaabeen in culays saaraan xildhibaanadii impeachmentiga saxiixay waxaan cadeynayaa halkan ka cadeynaynaa cid lagu qasbay impeachmentiga markii la saxiixay ma jirin dhammaan dadka saxiixay waa ay saxiixeen markii la geeyay oo la qabtay kadibna impeachmentiga sidaas ayuu sharci ku yahay xeerkan wuxuu qabaa inaan laga bixi karin qofku wuxuu u bixi karaa kaliya markii la codeynayo mar haddii la qabto
wixii intaas ka soo hara waa foodo iyo nafal caarignimo iyo qariska tuurnimo weeye iyo sharciga la diidan yahay intaas waxaan uga gudbayaa falalkii ka dhashay ee labada guddoon ay ku dhaqmeen hadduu guddoomiyaha golaha shacabka uu joogo labada guddoon waxay qabanayaan wuxuu guddoomiyaha shacabka u diro waxay la mid yihiin xildhibaanada caadiga waxay kaga duwan yihiin keliya awaamirta guddoomiyaha golaha shacabka ay qaadanayaan wax amara ma bixin karaan wax tallaabo ma qaadi karaan wax warqada ma soo saari karaan wax shir jaraa'id oo qaban karaan guddoomiyaha amrina ma samayn karaan taasna waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo waa haddii kala dambeyn nidaam la ilaalinayo haddii meesha isku jabhadeyn tahayna dad danba la isku jabhadeynaya qodobka kale ee muhiimka ah aan rabo inaan ka hadalno waxaa weeye inaan u caddeeyno shacabka Soomaaliyeed impeachmentigan uu taagan yahay haddii madaxweynaha impeachmentii laga geeyey oo khiyaano qaran ah ma dhoofi karo shir caalami ma geli karo heshiis caalami ummadda Soomaaliyeed ma soo geli karo dekraato ma soo saari karo xil cid kama qaadi karo xil cid ma dhiibi karo wax awaamir ah uu fulin karaa ma jiro sidoo qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana madaxweynuhu waa eedeysan khiyaano qaran arrimahaasi ayaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inuu caddeeyno baarlamaanka Soomaaliya waa sidiisii waajibaadkiisa dastuuriga ayuu gudanayaa cabsigelin iyo cagdugleen iyo ciidan la soo urursado iyo dadkoo la handado iyo xildhibaanadii impeachmentka saxiixo la yidhaaho tallaabo la idinka qaadayaa ama siyaabo kale loo handadana ma soconayso waxaan u sheegaynaa international community-ga beesha caalamka shacabka Soomaaliyeed dal iyo meesha joogaan annaga waxaan ku taagannahay shuruucdii dalka cidda diidanna waa cidda in la marsiiyo processka diidan horay ayaan u sameeyeen lagama aqbali doono waxaan cadeynaynaa in uu yahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne eedeysana ah laga soo bilaabo 9kii bishan 2012 markii la geeyay 5tii galabnimo impeachmentigiisii khiyaanada qaran waan mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم goobta maanta waa taariikhdu waa 11 bishii 12aad 2018 waxaan joognaa villa Hargeysa waxaan nahay xildhibaano kor u dhaafayo 70 kana soo horjeedo dibindaabiyada iyo dhibaatada lagu hayo baarlamaanka Soomaaliyeed goobtu waa villa Hargeysa waa ku celinayaa waxaan ku soo galnay dagaal waa xafiiskeeni iyo meelihii loogu talagalay inuu dastuurka iyo qaranka Soomaaliyeed loogu shaqeeyo sareynta dastuurkan loogu shaqeeyo waxa ka shaqeynaya dibindaabiyadaas waa golaha fulinta iyo qolo lagu sheegay guddoon ku xigeen laakiin aan xaqiiqa shaqo ka qaban doono insha Allah aan ka saari doono baarlamaanka qaybintiisa iyo dhibaateyntiisa ay mar walba maaragtay u taagan yihiin aan maaragtay shaqo maaragtay nidaamiyan ah aan ka qaban doono insha Allah aan gacanteenaan ku saarnay codkeenaan ku saarnay dibna aan uga qaadi doono mas'uuliyad darrada ay muujinayaan darteed iyo baarlamaanka ay qaybinayaan waxaan u soo galay kelmadaha u qaatay hadalka nuxurkiisii bareeska lagu sheegay warburtiidka lagu soo saaray xildhibaanadii kalena way kaabeen madaxweynaha uu dacweysan yahay waa sax waxaan ku raacsanahay xildhibaan xasan oo iga horreeyey dhaqdhaqaaqiisuna uu iska yaraan doono dabcan inta arrintan meel laga saaray waxaan rabaa inaan xoojiyo oon baaq u diro maxaa la yidhahdaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed saraakiil xigeenta dableyda qaranka Soomaaliyeed inaan baaq u diro ay joojiyaan awaamirta guracan ee loo dhiibay inay ka hor yimaadaan annagu waxaan u taagannahay sixitaankii baarlamaanka waxaan u taagannahay inaan difaacno ummadda waxaan u taagannahay inuu sharcigu sarreeyo fadlan amar khaldan ha qaadanina amarkii khaldan amar sax haddii lagu siiyo ood noo sheegto waa fahmi karnaa waana kaa tegayna laakiin albaabkan ma geli kartid xafiiskan ma fariisan kartid halkan xildhibaan waa laga mamnuucay waxaasoo dhan waa ceeb iyo fadeexo qolada idinka sarraysay oo amarkaas idin siisayna way khaldan yihiin marka baaqayga waxaan ku celinaya codsina iga ciidamada inay ogaadaan sarreynta sharciga in xildhibaan aynan korkiisa taaban karin in xildhibaan aynan amri karin in xildhibaan aynan qori kusoo taagi karin in xildhibaan meel ay u diidi karaan oo dalka ka reeban ayna jirin intaasaan ayna u sheego garabna aynagu siiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ku darsado wax yar warqadan war-saxaafadeedkan uu soo jeediyey xubnihii keenay eedaynta madaxweynaha sida loo sheegay madaxweynaha markii la eedeeyey kabacdi communitigiisa wuxuu u dhacayaa hoos sida loo sheegay dhaqdhaqaaqiis waa yaraanaya awaamirtiisana way yaraanaysaa sharciga isagoo qabo waxaan rabaa kaloo inaan ku daro hay-adaha maaliyadda iyo hay-adaha amniga maaliyadda dalka laga qaadayo ummaddaa iska leh waxyaalaha oo ay ka soo bilowdeenna waxaa ka mid ahaa maaliyadda la luursaday oo guddiga maaliyadda baarlamaanka uu keenay ayaa soo kicisay waxyaalaha badan iyadoo uu qaladaad badan hor u jireen haddana waxaa nagu maqaalaa mase aan maqlaynaa in maaliyaddii si khaldan loo isticmaalayo oo weliba xildhibaanada la leeyahay intaasaa lagu siinaya ka noqo mooshinkii waxaan soo jeedinaynaa hay-adaha maaliyadda waa laydugula xisaabtami doonaa dakhliga idin soo galay meeshaad ku bixiseen hadhow cid ay ka bixinaysa hebel ba ay amrin ma jiro waxaa miisaaniyaddaas ku astaysan wax ka baxsan ninkii bixiyo